waxaa xilligan magaalada Muqdisho ka socda diyaar garow ku aadan soo dhaweynta wafdiga ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan oo maalinta berita booqasho ku imaan doona magaalada Muqdisho. qaybo kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama waxaa ka babanaya xilligan calamada dalalka Soomaaliya iyo Turkiga taasoo muujinaysa soo dhaweynta loo sameynayo wafdiga ka imaanaya dalka Turkiga. qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa saaka socdaal aan ku soo maray meelahan socdaalka aan ku soo marana waxaa kamid ah isgoosida kilometer 0 Jubba tiyaatarka dabka kilometer 4 iyo wadada dheer ee aada dhinaca garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka babanayeen astaamaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga waxaana hadalheynta bulshada Muqdisho ay ahayd maantay booqashada madaxweynaha dalka Turkiga uu ku imaan doono dalkeena. gudoomiyaasha degmooyinka Boondere Abdulcasiis iyo Shangaani oo aan kula kulmay halka ay ka socdeen diyaar garowga loogu jiro soo dhaweynta wafdiga dalka Turkiga ka imaanaya ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha dalkeena uu imaanayo madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan. maantay waxaan ku geli jirnaa howl maalmeedkeena maalin baqaba jirnay oo aan ka qaban jirnay degmada Boondere gaar ahaan laamiyada sidii aan uga qayb qaadanay nadaafada guud ee gobolka sida arkayseen ba hadda waxa gaashana taagan qayb kamid ah dadkii shaqaalaha ka shaqeynayay ololaha nadaafada ee degmada Boondere waxay ka kooban yihiin ilaa 4 meel oo qaybinay intaan waa qayb yar oo kamid ah qaybihi kala inta soo aragteen ba waxay jiraan qaar daljirkay jiraan qaar waxay jiraan Jubba qaarna ilaa xawtaakay jiraan jidka dhan aan ku safanahay waxaan rajaynaynaa xamar inuu ku soo laabto bariisamaadkii wadaacdii asalka inuu ku soo laabto taariikhda inuu ku soo laabto ayaan rajaynaa insha Allah taala wadada waa wadada cusub ay noo dhiseen walaalaha Soomaaliya islaam muslimiinta ee Turkiinta haajada uma tirina waxaan ku dadaaloonaa nadaafada oo gobolka Banaadir waxaan jecel lahay in magaalada dhan aan nadiifino haddii Ilaahay idmo dadkeena iyo shacabkeena waxay diyaar u yihiin inay nadaafiyaan magaalada Muqdisho. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cali Maxamuud Faarax Ali Seeko oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar garoobay soo dhaweynta wafdiga heerka caalamiga ee imaanaya magaalada Muqdisho. runtiina dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan u ah sharaf annaga oo ah maamulka gobolka Banaadirna noo ah sharaf iyo wanaag maadaama markii ugu horeysay oo annaga oo maamulka uu hogaaminayo Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab uu xukumo magaalada Muqdisho oo madax u ka yahay ay dhacday in wufuud caalamiya lagu qaabilo magaalada Muqdisho haddana magaalada Muqdisho sidaas soo aragteenba waxaan cadeynaynaa inay diyaar u tahay martigelinta shirarka caalamiga iyo kuwa gobolba insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ku soo aragteen magaalada Muqdisho inay martigeliso awoodna u leedahay una lahaan jirtay ayna soo ceshatay maqaamkeedii inay martigeliso shirar goboleedka iyo kuwa caalamiga ah sidaad ogeydeen igada ku shirtay magaalada Muqdisho haddana waxaan rajaynaynaa oo martigelinaynaa oo soo dhaweynaynaa dawladda walaalaha aan nahay ee Turkiga madaxweynaheeda Erdogan iyo wafdi hogaaminayo wufuuduna sidaas ay soo daba joogi doonaan. madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa booqashada maalinta berita uu ku imaanayo dalkeena u noqonaysa tii labaad uu ku yimaado caasimadda magaalada Muqdisho waxayna ahayd markii ugu horeysay ee magaalada Muqdisho uu yimaado isagoo ah ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga sanadkii 2011 xilligaas oo ay dalkeena ka jirtay macaluul aad u daran. Maxamed Xasan Cali SNTV magaalada Muqdisho.